Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaan bilaabeynaa cashiro ku saabsan algebra. Sidaa daraaddeed marka waxaan rabaa inaan isku dayo inaan si boobsiis leh aan maalinba cashir u qaadano si aan koorsada ugu dhammaato adigoo gaaray adigoo noqday macnaha become an algebra master. Macnaha algebra dambe inay ku dhibto muhiimaddu ma ahan. Muhiimadduna waxa weeye mar dambe inaadan algebra aadan wax dhiba kala kulmin insha Allah si aan u gudubno kuwa kaloo kasii sarreeya sida calculuska iyo dhamaadka iyo saas iyo marka basic hore aan iska dhisaynaa marka hore. Waxaan ka bilaabeynaa maanta cashirkeennan simplified expression. Markaad expression simplify ku sameynayso waxaa loo baahan yahay waxyaalaha muhiim inaad marka hore ka fekertid. Horta waxaan idin dul maraya halkan waxaa ogaataan ku dhufo calaamadeeda mar saan loo qoraa. Laba lagu dhuftay saddex lagu dhuftay labo lix. Dhibicna waa loo qori karaa. Saana waa loo qoraa lix lagu dhuftay hal waa lix. Saan laftigeeda waa ku dhufo waxaa laga wadaa afar halkaa ku dhufaa ku jirta ku dhufashaa ku jirta. Afar lagu dhuftay shan wuxuu la mid yahay 20. Tanna waa ku dhufaa laga wadaa halkaas ku dhufada ku dhex jirtaa waa saddex lagu dhuftay afar. Labadaba laakiin waxaa la geliyay parentheses. Marka saddex lagu dhuftay afar waa 12. Marka ku dhufooyinka noocan oo dhan inaan isla ognahay waaye kan waa ku dhufaa ku jirta halkaas halkaa ku dhufaa ku jirta kan waa ku dhufo. Marka haddaan hadda expressionka fududeynayno qaacidada isticmaali doono sidaan aan isla socono. Okay. Kalkan iska bedelaya. Okay. Okay. Waxaan sameynaysaa marka ugu horeysa meelahan kuwa sidaan oo kale u eg oo ujeeda inuu parentheses ay leeyihiin waa isu geynaynaa iyaga halkan ujeedaan labadan ku dhufaa u dhaxaysa labadan ku dhufaa u dhaxaysa xaggaasna ku dhufaa ku jirta halkaa ku dhufaa ku jirta xaggaana ku dhufaa ku jirta marka ugu horeysa haddii aad aragto parentheses iyo tiradooyin isu dhow isku ag dhegan saas waxaan gelinaynaa macnaha curly brackets gasho saa u gasho si waxay kugu socmaan. Hadda marka si qurux badan aan u qoraynaa marka saddex laga jaray labadan haddii la isku dhufto maxay noqonaysaa waa 10 minuskaasaan qorayaa haddana halkan waxaan sameynaynaa marka lix lagu dhuftay labo waa 12 laakiinse labada minus ay wadatay saa daraaddeed marka ma tuuri karno parentheseskan maadaama marba haddaa arag tiradu inay minus wadato iyadoo parentheses ku dhex jirta ama keligeed ah waxaa muhiim ah inaad il gooniya ku hayso kan iyo kan oo la isku dhuftay waa 12 iyo minuskooda marka maxaan sameynaynaa minus 12 aan qoraynaa halkan maadaama negativekaas ma tuuri karno haddii kale khalad baa imaanaya kadibna plus baan qoray halka waa pluskan way laba lagu dhuftay shan waa 10. Okay. waa la socotaan soo maahan kadib marka waxaan sameynaynaa minus iyo minus waxa weeyaan way isa saarayaan waxayna isu bedelayaan plus halkaas haddana mar labaad baan qoraynaa si fiican u qoraynaa saddex laga jaray 10 ilaa parentheseska naga dhamaado minus iyo minus waa plus iyo 12 plus 10 inta hadda mujda waa dhamaynay waxaan tirnay wixii parentheses ah dhan waa dhamaadeen curly bracketska macnaha bracketka aan geliyay muxuu naga anfacay waxaan mar walba si fiirinayna meelaha ku dhufay ku jira naga qarsoomi karta waayo aan sii wadno saddex 10 ka jar ama waxaan samayn karnaa fiiri waxaa ka fudud 10 oo minus ah iyo 10 plus ah mar walba ila socda hadda kadib waxaa ogaataan tirada horteeda signka yaala idaa iskale saddexda horteeda signka yaalo waa looma jeedo waa plus haddii waxba oolin waa plus 10kan isagaa iskale minuskan 12 pluskan uu leeyahay 10kana 10 uu leeyahay haddii 10 iyo 10 la isu saaro way kala go'ayaan soo ma maxaa inta ku soo haray saddex ugu daray 12 oo ah 15. Okay. maxaa maanta fahanay marka simplify si loogu sameeyo expressionka oo ah marka ugu horeysa haddaa aragto parentheses wixii haysta marka hore waxaan gashanaynaa bracketkaas si ay noogu socmaan kadibna waxaan isku dayaynaa inaan fududeyno si jawaabta noogu soo baxdo waa ka gudbin cashirkeena dambaan gaari doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum.